أحمد نور فاهية وزير الدولي هراء وزارة دوليستا هودا ومانتا qaar kamida warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa waxa uu ka hadlay iskoorimaad sababay dhaawac iyo dhimasho kaasi oo deegaanka Ceelaf Weyn fiidnimadii shalay ku dhaxmaray qaar kamida ciidamada iyo sidoo kale dad shaciba shalay waxa ka dhacay shaqooyin baa ka dhacay laba meelood oo bilaa waxa ugu sahlan baa liibalada horeysa dad way ku dhinteen magaalada Ceelaf Weyn waxa halkan shaqaaqa ka dhacday muxuu ahaa Ceergaabo runtii waa wax aad looga warwaro waxaan muxuu ahaa dhimanaya waa dadkaygii waxa weeye waa ehelkay waa awowgay waa abtigay waxa weeye waa dadka ehelkaygii Somaliland ama dadka reer Sanaag meel kasta ay joogaan dal iyo dibad gudo miyi iyo magaalo waxaan ka codsanayaa war arrinka dadkeena ku dhimanaya bilaa macnaha ee aan ku dhimanayn wax sifa sharciya ee ku dhimanaya halka muxuu ahaa ku dhiman ee wax isku dilayaan aan la garan diin iskuma haystaan deegaan iskuma haystaan muxuu ahaa xoolo iskuma leh waxa laale waxa isku leeyihiin ma jirto dadka ku mashquulsan dadkan walaalaha ah ehelka ah dhibaataysan inay ama wax warab kala geliyaan ama dhibaato muxuu ahaa ka dhex shaqeeyaan ilaahay waxaan ka barayaa inuu ilaahay kuwaana uu aqliga u soo celiyo ay gartaan war waa isku mid qofku hadduu wax dilo iyo hadduu maskax niyadda ka jeclaado in wax la dilo Ahmed Nur Faahiye oo hadalkiisa si wata ayaa geesta kale fariin u diray Cornel Caare waxana uu sheegay inuu qaato nabadda ay u wadaan odayaashu isagoo ka hadlayana waxa uu yiri Cornel Caare aniga waa awowgay anigu waxaan jecelahay arrinka inuu nabadgelyada halkan waa dhulkiisii waa dadkiisii waa dadku badhna awowga ahaa badhna abtiga ahaa badhna adeerka ahaa waxa weeye wax kasta way dhacaan dadka waa la iska hor keenaa waa loo kala sheekeeyaa waa la isku diraa waxaan leeyahay go'aanka muxuu ahaa ummaddu wadato ee salaadiintu wadaan ee dadka deegaanka iyo dadkaaga iyo ehelkaaga uu wado waxaan leeyahay qaado arrinka nabadda hal la qaato runta waxaan danta iyo wanaagga iyo islaamnimada iyo tolnimada iyo mid walibana taasay ku jirta nin waliba deegaankiisiiba horumari deegaankeenni maanta waa nasiib darro marka awow arrinka dhulka dhig dani kuma jirto qaranka uguma jirto dadkeena uguma jirto gobolka uguma jirto meel uguma jirto Cabdiraxmaan Axmed Star TV Ceergaabo.